wixii markaa inooga fuli doona markaasaynu soo saari doonaa annaka agaasimaha qorsheyntu waxay guddoomiyaashu soo diraan ay degmadooda u baahan tahay ee sanadka cusub ee 15 la qabanayo saasaan markaa mashruuc wada jir ah hordhigayna hay-aduhu waxay naga caawinayaan saasayna kaga dhantahay kuwii maanta waxaan xarayn doonaa berri baan xaraynayaa kuwa dhulka fadhiisanaya iyo kuwa hilibka guryahana waan dambaysiinayaa furayaashoodii waa kala maqan inantii dhistay baa qaar loo maqan biriishka jajabka oo kale marka iyagana halkaasina biriishka saddexaad halkaasina waa okay oo guryihii kuwii waan sideedii qolo meesha ka duminay halkaasina waynaga okay intii kale oo dhan inantii baa laga doonayay injineerki laakiin way xidhan yihiin qof kunta kii kale weynaa dhinacaasuna waa inaynu furun u baahayay labada biriskooda fiican yihiin waa dhamaystiran kii kalena communitygii lacagay iska ururiyeen inaguna waxaynu ku dari lahayn baynu horta arrinta sariibada labada dhantiina mas-uul ahaan inta qardheer waxay nagu haystaan culays baa naga haystay soo gaabay inta ka horreysay mayorka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo intii hobseysa soo mid markaa barolanka wasaarad maxay idhahdaa sariibadu waa in halkeeda daa iyo ka dhiman iyo rabaa idigu wada joogay intiina xogaanka hore ahayd iyo labada cusub ee loo wareegtay oo dhan hawshaa ku noqon faatiha aadii fahamsiiyo saasoo muuqata ku xeeran meesha hay-ad bay markaa u dhigtay oo ay dadkii dhistay inantii meesha dhistay waa loo dhigay marka laakiin wixii kale oo dhan ha noqdo miisaskii hilibka ha noqdo meelihii kale ee ay fadhiisanayeen dadka khudradda iyo bagaashku wixiiba maanta waa oo dadkii lahaa dadkii lahaan jiray ayaa iyagii baa leh oo ku qoran wax qorooda lagama jiro iyagii baana leh wax waxaweyaan sida hadalka su'aalaha noocaas inoo weydiinaya waxa weeyaan saan soo fargeliyo waxa weeyaan mashaariicdii JBLG baa caqabada ku timi sariibada qurac dheer baa la yidhi maadaama aydan taafurno ilaa xilligaas ay jirtay waxaa muuqata inaydan uga baahnaynba mashaariicgabagooda inaydan u baahnayn marka madaxweyne sababtu involvement ugu yahay waa sidaas fahma caqabadiina hor jooga sheega macalin halkaa madaxweyne inta soo dhigtay Ari 2012 qoladan golaha deegaanka cusub may joogin lacagta ay dawladda hoosena bar bay bixinaysay GBLG bar bay bixinayay waxa uu yimaadeen qoladan cusub ee golaha deegaanku sare wado qabyo ah 17 qolo dambe qoladan deegaanka cusub ayaa dhisay waa la dhameeyay marka dabeed waxa markaa ogaantay jiray waxay ahayd si loo qaybin lahaa dadkii dadku agteeda galaan laakiin imika finally muddo 3 bilood way dhisnayd waa la dhameeyay mashruuca mataqaanaa intii dawladda hoose kaga harsaneyd oo hay'adda xilligaa la dhameeyo qoladan cusub way dhamaystay imikana waxa weeyaan shalayto waa la furay markaa furitaankii waxa weeyaan already dadkii la geynayay soo ii sheegay agaasimaha hantida gurgurtadu wuxuu tiradana waa la iskaraysan tahay markaa in waxaa la doonayaa in la geliyo uun dadkii markaa taas hawshaasi way dhamaatay ومفاتيح ذو قاعد ضد السيسي هذا أنا كنت شغل ليس لو كده تاسنا حنا وقت عقبا كاوت ما داين المخاش هذا يفرتان أخذ من ولا عليه شكل واحد ليه waxaan asaartii maana dhisi kari waayn madaxweyne
لأن أثرت إنجليز وأنت imika sanadkan dhammaanu habitaad ka cabsan markaa geerj in muxuu ahaa halkan sanad kasta waynu soo weydiisaa markaa sanad kasta dhismaan waxaan u dirnaa hambalyadii المدح سلام عليك شاور